magaalada Barawe waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la geeyay magaaladaasi iyo ciidamada militariga ee halkaasi ku sugnaa. Dagaalka ayaa ahaa mid aad u qaraar oo dhinacyadu ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Shar ruux oo dhinacyadii dagaalamay ayaa dhintay halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen. Saakay weli waxaa taagan xiisada u dhaxaysa labada dhinac iyada oo laga cabsi qabo in mar kale ay fooda isdaraan dhinacyada. dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaaba la yiri sida wararku ay sheegayaan cidda looga dambeynayo sugidda amniga magaalada maadaama militarigu in muddo ah ay maamulayeen. taliyaha dhinaca militariga ee Barawe Cornel Cabdiraxmaan Cilmi ayaa sheegay in weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka daraawiishta ee dhawaan la geeyay magaalada Barawe isagoo oo sheegay in ay ku daba jiraan cidda ka dambeysay. ومن تجي حبات كبلارين ولا دعين ماشي اللي كترين تاسع دقائق كبلار ما يعرف قبلني دعوة يودنا شر والله كل أفر من الكرب وكذبت ترى وش ما هم احتوجنا واي زين ما أتوب بيدانا كانوا وين ولا حوارو كانوا ما يوكل هي ولا وهي في كل ما نشوفه والله إنه هذا مش يكره عليك ما نقدم بيته لكن وعينكم إيش اللي تشوفه وحتى كانت تجيمة مية ولا مية أنا قلت حاسدي تشيفا يا دجال كلها مية مسيب الرأي وحاس مسيب الرأي أسكتها لكن دجالكم أنت سومالي يكون هي وحنكون شيء هي أنا حاسدا تشيفي سيدا أنا معناها قاف وحيدا كل شيء يا ما هني واحد عيننا أنا دول جديد ولا قلت له حقوق داعي ما سيدا ما مركب عن ربع أنا حاسدا تشيفي عسر كان دكان هاي كاسينا وحول له نين عيدا كان مدحوها سوتري نال عن طوقيري ماشا من ملتري يوفو فضية إنه حضر لدعي واحد حمري وهدا ومعناها وضحينك اللي يقسيه وعريفاء ومعناها هالكا دحمر مجره مية ما أنا مغل ما أشوفش Barawe waxaa ku sugan ciidamo qayb ka ah howlgalka ADMIS ee Soomaaliya kuwaasi oo la tilmaamay in ay ku guuldareysteen daminta dagaalka. xildhibaan Deeqa Cumar Saalax oo ka tirsan golaha deegaanka Barawe ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ADMIS ay ku guuldareysteen in dagaalka ay joojiyaan isla markaana magaalada uu ka bilowday barakac xoog leh oo ay sameynayeen dadkii deganaa. ciidamadiina waa la kala reeynaa ilaa hadda aan soo ma imaatay waa la xalin waayay qasaare dhimasho iyo dhaawac labada dhinac waa jira. ciidankii waa soo fadhiyaan qaab loo xaliyay ilaa hadda waa la laayahay odayaashii deegaanka way ku bixeen wax way ka qaban waayeen ama Soomaaliyeed wax way ka qaban weysay wallahi dagaalkan sababta uu ku bilowday waxay ahayd mid ka mid ah ciidamada militariga ayaa askari ka tirsan ciidanka daraawiishta ku dilay daraawiishta ayaa markii hore wax dishay kadibna waxaa dhacday in ciidamadii ay isku urursadaan qaab militari ahaan ay weerar ay ku qaadaan maaragtay ciidan daraawiish oo madaxtooyada degan sidii dagaalkii ku bilowday kadibna waxaa dagaalkii isku bedelay aana qabiil iyo waxaan loo maaragtay magaaladii dhan beddelgelay laakiin hadda xaaladda waxay taagan tahay military iyo daraawiish is horfadhiyo military waxa ka salaam marka hore 9 saac bar camal ay dagaalkan 10 saac iyo bar bilowday ilaa haddana xabadu waa socotaa goos oo dhaxaysan iyo qasaare dhimasho iyo dhaawac labada dhinac waa jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa xaaladda dejiyo wax dhacayo hoobiyo hadda aan maqlaysid. xaaladda magaalada Barawe ayaa weli ah mid kacsan iyada oo dhinacyadu weli ay is horfadhiyaan aysan jirin cid soo kala dhex gashay. magaalada Barawe ayaa waxay ku magacaaban tahay in ay caasimad u tahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo maamulkaasi weli uusan ku shaqo bilaabin ku shaqeynta gudaha magaaladaasi.